السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير تقييمها هي قدر انتي شرفتم مدرهم ملك استجوبتان وقت كستيد انتهاي وقت قديم على هذا بتبالي نحرستي بين كل نهارات إن كنا بين برمانين ما توحي سوكي وحي رماه وحدوني أرين إن بدن لقينا قصور على معلمان دنبه وقتينا دنبه وإن بدن إذا قصور نقطي بين وحي روكو وانك كتلمام إن شاء الله تعالى وإن تسيشي كريسا وهاي ميل فوكسي وقاري فيديو إن شاء الله تعالى لا يكتناس كل داشان أريد الدنيا كهذا ما توحي تعالى إن أريمها دور الشدة إما مهل مرنكا حوقن لي الفيديو يربن دوني هنا هذه لدعوتها كدي نوحي أنا بعدين كرنا إن شاء الله تعالى أنا كنا نرحنا فيديو وين ورد لي رقم ده لأن هذا السومان الآن حكوا هردها ما يو بل إذنكم إندهنا يو دقينا يكون دقيستي ولا ده إن شاء الله Somaliland iyo doorasho madaxtooyo iyo dagaal waxa noo fudud Somaliland iyo doorasho madaxtooyo iyo dagaal waxa noo fudud hadii doorasho madaxtooyo la weeyo in Somaliland waar tolada hogaamiye waa tahay fiidiyowga waad ila aragteen waa dhalinyaro ka mid ah dhalinyarada Somaliland inankan waxa uu leeyahay doorasho la galo doorasho la gali waayo iyo Somaliland u dunta waxa ii fudud Somaliland u dunta إن هالقطب بان دوني برينا إدين برارجيو هذين نهاي شعب كسوماليلاند شعب كسوماليلاند نبض ميدا إنه نول مسينا كنول سؤال شيء جواب نبض ميدا إنه نول مسينا كنول بقول waxaan aaminsanahay anigu nabadda inaan iyada ku noolnahay way haddaan nabad jirin wax Allah iyo wax inoo suurtagelay iyo wax inoo hagaagay iyo nolol jirta wax wad saluugi kartaa xukuumadda wad daliili kartaa waxyaabo ka gaabis wad sheegi kartaa sideed u ataagi kartaa waxa weeyaan qaladaadkeeda u sheegi kartaa laakiin qaran dhisan oo adigu aad ku nooshahay inaad adigu tiraahdo hadumo iyo wax ku waayay waa kuma wax ku waayay waayo kuwa sawaxan shabiya nabad baynu ku noolaanaynaa nabad baynu ku noolnahay ku soo toosaynaa nabaddu iyaduna ma wahnayna u baahan maanta Somaliland afarta jihaad ka qorasho afarta jihaad ka qeybto yaa wax ku waaya yaa ku hor qofka ku dhimanaya waayo qofka wax weyn naftiisa ku waaya waayo qofka noloshiisa ku baabaysa qofka hantiisa ku baabaysa waayo waa adiga ku nool aqligeena ha garto inaynu nahay qarankan dhisan iyo nabadan aynu haysano inaynu ku noolnahay haddaad maantaba aad ku dhaqaaqdaan waxaad sheegaysaan iyaan jabaadaba haddaad rumaysaanba ama laydin soo adeegsado ama cid kale idinka dambayso ama idinku ay soo abaabula haddii aad kuba dhaqaaqdaan yaa naftooda ku waaya dhulkan ilaahay nagu uumay intan kooban aynu ka degannahay afarta jihaad ay ka gubato cidda ugu horeysa maadarayaalow waxyaabo aan loo dul qaadan karin baa jira mucaaridkii inta ugu badan waxay ku taamayaan labada xisbi ee mucaaridka iyo wadani waxa ay ku taamayaan in dib dhacayso dagaal dhacayo la baabayo waxaas ay ku soo dhacayaan kursi laguma gaaro dagaal
dadada doonaysa kursiga inaad fadhiisato berri kuwiina doonaya soo ordaya kursiga kusoo cararayaba berri hadday ay idin aad kuba guulaysataanba ood heshaanba dee sidana tiina sabax ku maamulaysaa see umad ku maamulaysaa shacabka dhagaha kaga waalina maskaxda ka gumaysanina adeerayaal awood waxba looguma helo saddexdiina xisbiba shacabkan waa wareerisay shacabkii waxaad ka dhigteen dhagahoodii qaarkood waxaad ku tuurteen cabsi maxaa dhici ayay qaarkood ka fikireen saddexdiina xisbiga is haysta ee loo dhamayaa nin kastooba wixii aad berri haddaad soo baxdo ummadda ku hogaamin lahayd ka fikir la imo qorshe la imo aan dagaal yahan jaban lahayn madaxtinimada iyo boqortooyada iyo madaxtinimada ilaah bixiya cidda doonana siiya cid ilaahay siiyan baa halka timaadaa laakiin wax lagu gaadhayaa waa wada tashi wada hadal iyo waxa weeyaan in la isku yimaado la is dhegeysto la isu tanaasulo waxa weeyaan qarankani wuu naga wada dhexeeya la ilaashado madaxa u sarreeya ilaa kuwa mucaaridka ilaa waxa weeyaan shacabka waa in naga wada sibana cid gaarana nabadiisa ma ilaalinayso innaga nabadda ku nool nabadiyada inaguma nool ilmaadarayaalow nabaddu inaguma nool innaga ku nool saddexda xisbi waqtigoodu waa dhammaaday waqtigii xisbinimo 10 sano way ka dhammaadeen cidda kursigan fadhiisan doonta cidda maamuli doonta ilaahi subxaana watacaala ayaa og ciddu ilaahay u dooranaa imanaysa ama urud ha ahaado ama wadani ha ahaado ama kulmiye ha ahaado ama kuwa ururada iminka soo baxay ha ahaadaan ciddii ilaahay u talagashay baa maamulaysa qof kastana tan inaga ku nool iyada naguma noolayn nabadda ilaashana safgarad baa wax lagu dhameeyaa wada tashi isu tanaasul intaa tasawir mar lagu gaadhay wanaagga ama maanta haddaan idhaahdo waxa weeyaan xisbi hebel baan ku jiraayo doorashadu haddii dhicweeda waa laisku marina laisku baaba'aya waxaan aaminsanay ka ugu horeeya ku marinaya wax ku noqonaya inuu anigii walaalayaalo shacabka dhagaha ka wasaqaynay shacabku idin eegaya waxaan aad ugu kalsoonahay aan ugu mahadnaqayaa shacabkayga Somaliland inta media ka hadlaysa maalinta kale maalinkay noqoto doorasho waxay ka hufan yihiin qabiil waxay ka hufan yihiin muxuu ahaayey ay ka dheer yihiin muxuu ahaayey wareer hebel iyo waxa weeyaan kana ixiga iyo ay xaysiga ka dheer yihiin maalinkay noqoto doorasho waa u soo baxayaan ka is yiraahdaan bari waa idin hogaaminaya oo isaga waxa weeyaan idin hogaamin kara ayaa codkooda siinaya adeerayaal shacabkan kale la kasbada la doonaya shacabkuna way idin dhegeysanayaan oo idin daawanayaan hay sharafta iska ridina karaamada iska qaadina nin kasta oo kalsoonideeda iyo waxaad la timaad aad waxaad hayso shacabku soo bandhig saaxadda kaalay tartan waxa weeyaan raganimada muuj kulli dareen bay soo kiciyay hadduu hadalkii ku dhaafo iyo haddii waxa weeyaan hadalladayda ay adkaadaanba waad garaali ahaanaysaan tan inaga ku nool iyada inaguma nool nabadda inaga ku noole iyada inaguma nool nabadda in ilaashano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu